waa hagaag daawadayaal sida idin muuqata halkani waa webiga Shabeelle hoostiisa gaar ahaan buundada weyn ee magaalada Jowhar in daawadayaal halkani marka uu webiga biyo keeno waxay ahayd in goob aad iyo aad ay biyuhu ay meel sareysa u joogan in daawadayaal sida aad arkayseen in sharaxaadda uu bixinayay in mid kamid ah in dadka webiga in wax ka yaqaano in waxa uu sheegay in webigu cabir ahaan inuu taagan yahay in halkii ugu hooseysay waxaana in muddooyinkii ugu dambeeyay jiray in cabashooyin in ka imaanaya in dadka in ku nool jiinka webiga Shabeelle iyo waliba kuwa ku nool magaalada Jowhar waxa ayna ka cabanayaan biyo la'aan soo wajahday in xoolaha iyo waliba dadka ayaa in labadii maalin ee u dambeysay in biyaha yar ee ku harsan in webiga waxay ahaayeen in kuwa ay aad in ugu dagaalamayeen ay kooxda kale ay doonaysay inay iyadu biyaha isticmaasho in tuulooyin in dhowr ah oo ku yaalo in jiinka webiga Shabeelle ayaana haysanin biyo ay cabaan iyadoona dadka tuulooyinkaasi in ku nool aysan lahayn ceelal waxayna in markii hore ay cabi jireen in biyaha in webiga oo saaid ay u isticmaali jireen waxaana dadka in webiga yaqaano oo waxa ay sheegayaan in biyahan yar ee webiga ku haray in marka la cabo in laga heli karo in cudurro kala duwan sida in cudurka in shuban biyoodka oo biyahan laga heli karo marka in webiga Shabeelle ayaa iminka u muuqanaya mid biyo la'aan ah iyadoona guud ahaan in halkani aan taaganahay oo aan idin kala hadlayo aan muuqaalkani aan ku sameeyay ay tahay in bartamaha webiga iyo halkii ay biyaha ugu badani ay mari jireen in gidaarkani iga dambeeya ayaa daawadayaal in waxa uu yahay gidaarkii in buundadii loogu talagalay in biyaha in bartamaha biyaha in ku yaalay waxaana in buundadani la isaga kala gooshaa in afarta xaafadood ee magaalada Jowhar waxaana in halkani aan taaganahay in dhanka in bidix iga jira in xaafadaha Kulmis iyo Hanti Wadaag halka in gacanteeda midigna ay iga jiraan xaafadaha in Horseed iyo Buulo Sheekh waana buundadani waa buundada in la isaga kala goosho in afarta xaafadood ee magaalada Jowhar waxaana taaganahay buundada weyn ee magaalada Jowhar waxaana halkani kore iga jirta buundadii iyadoona tani ay idin muujinayso in guud ahaan webiga Shabeelle uusan wax biyo ah aysan ku jirin xilligani waxaana halkani isla maanta aan wareysiyo kala duwan aan kula yeeshay qaar kamid ah dadka xoolo dhaqatada iyo waliba dadka in wax ka yaqaana webiga Shabeelle waxayna dhamaantood ay ii sheegeen in 35 sano ka hor webiga Shabeelle uu mar sidaan oo kale uu noqday waxaana wareysiyadooda ay u dhaceen sidatan magacayga anigoo la yiraahdo Maxamed Axmed Nuur Maxamed Ibirow waxaan taaganahay webiga meeshii ugu gudsaneed oo buundada hoosteeda ahayd muddo 36 sano laga joogo ayaa hadda ka hor aan saan aragnay inta ka bacdi maanan arag magaca la yiraahdo waxa la yiraahdaa Ximanduug oo webiga dhaxdiisa ximanka laga qoday marka waa amuuraan arag ilaaha yaqaan amarka iibaa wata laakiin dhibaatadan tuhan aragna maahan xoolii wixii cabaan waa la leeyahay dadkii wixii cabaan waa la leeyahay odayaashii naga waaweynay 36 sano muddo ka hor ayaan hal mar aragnay yireen sidaas daraadeer waxaan codsanaynaa in waa amar eebe laakiin in gurgumad la helo dadaal badan la helo ayaan codsanaynaa sida maamulkan ka codsanaynaa ama dawladda amba adduunyada wixii wax bixiya dhibaato way xoolihii biyay cabaanay la yihiin dadkii waa ka daran yihiin beerihii biyo nabaadka biyo ku soo bixi jira biyihina lama hayo marka sidaas daraadeed waxaan codsanaynaa in dhibaatadaas gurmad la soo gaaro dadka iyo duunyada haysata حتى دور جوكتين بيوايان دعدي مركز دي بيوايان dadkay cunaan xoolaha waxa la biya laga siiya qodqodo ama ximan qof walba say u taqaano dadkina biyahaasay cabaan biyaha hadii la cabana shubana ka yimid Allah naga kaafiyo ilaahay madar khayr Allah nasiyo degdeg waa tahay daawadayaal in halkani aan ku suganahay waa buundada weyn ee magaalada Jowhar
waxaana halkani yaalla in doomankii loogu talagalay in tuulooyinka qaar ee magaalada Jowhar loogu kala gudbiyo in raashinka iyo weliba agabyada kale waxaana daawadayaal sida idin muuqato in doomankani ay yaalaan goob carro ah iyadoo guud ahaan biyihii halkan ku jiray oo webigu ay ka gureen iyadoona doomanku ay yaalaan in meel carro ah waxaana xilligii hore in lagu xasuustaa in doomankani ay ku jiri jireen in bartamaha webiga iyadoona biyo aad u sareeya ay doomanku ku jiri jireen oo weliba in halkani in marka ay ka dhaqaaqayaan ayaa daawadayaal in waxa ay ku shaqay jireen in doomankani in motor sida in waxaad ka garan kartaan halkaasi maadaama ay motor ku shaqay jireen in ay ku jiri jireen in bartamaha webiga in sida idin muuqatana in hadda in halkani in doomanka waxa ay yaaleen in goob carro ah iyadoona guud ahaan biyaha ay halkani ay ka gursadeen hadda webiga waa ujeedin si aad arkoosin waa eber waxa istaagan yahay meeshii numberkii ugu dambeeyay astaagaya marka biyo la helaayna waxa lagu helay biyaha ilaa 6 mitir aniga biyo ku cabnaa 6 mitir intii ka hoos ee biyo ma cabno 6 mitir 7 mitir 8 mitir 9 mitir markuu gaarina hubiga fasahaad waa markaas jiimada dhanba lama degana waa la nabad guuraa meesha dhan laakiin annaga waxaan biyo fiican ku helnay 6 mitir ilaa 7 mitir hadda Everest taagan yahay waa arkoosa hadda ishaada ku macnaa Everest taagan yahay biis hadii la cabana daacuna balaga helaab karaja aan waxa waaye hadda waxa isleenahay inuu ilaahay hubiga biino keeno dalati hayni aan tacbano waayo saan hadii ku baxna yani beledka wax degana wala arkayna هذا سنة كان كل يوم بعرها جوهر بحالة فين كان هذا بحنا عد متقن كرسوني قفتها ما جرت هذا معناه روب هدوي ما وين هذا واحد بير ودوانو هاي سام عد وراح كجونس والله بيكوز بيها هذا أكثر يا هدي أفكار صارت ودنان مركا أنا هدي أو بيجا أنا تسالو سيد فين أو بيجا أنا لقود أو عيدا أنا لقود أنا لقصارين وبيجا عصو صار كين جوبك سبعة هاوس بودعيا بقول كيبو تضباط هاوس بودعيا رد حقيقة